odayaashii waxgaradka deegaanka Buuhoodle ayaa maanta sii daayay laba maxbuus oo lagu qabtay dagaalkii dhawaan ka dhacay duleedka deegaanka Buuhoodle. labadan maxbuus oo ahaa askar lagu qabtay dagaalka ayaa la sheegay in lagu bedeshay laba nin oo laga qabtay dadka deegaanka Buuhoodle kuwaas oo lagu soo kala wareejinayo deegaanada Guumeys oo ka tirsan gobolka Sool. arrintaasi waxaa warbaahinta u sheegay Xaaji Maxamuud Xaaji Cumar Camay oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Buuhoodle. nimankan marka ugu horreysay waa nimankii maxaabiista lagu soo qabtay ilaa maalintiina halkan aynu ku haynay marka waxaanu xorriyadooda siinay marka saacadan laga bilaabo waxaanu siinayna waxa weeye waa dad la soo khalday oo masaakiina dad baa soo khalday marka annagu haddii aanu qabanay xaq baanu u leenahay inaanu sii dayno ilaalino sharaftooda ilaalino iyagoo nabad qabaanu sii daynay cid kastana waxaanu ka codsanay sidaas oo kale maxaabiista in loo galo oo loo hagaajiyo loo sii daayo xorriyadooda la siiyo maantana maalin walba taas oo kala joogto horta maanta iyaga waxa isku beegan maalintii xasuuq dhacay ee Kalshaale waa maalinteedii maalin walbana duulimaadkaas jooga maalin walbana raasa dadka loo qabanaya maalin walba saasa dadka loo xasuuqaya waxaanu leenahay dadka la xasuuqayo xasuuqaha laga daayo dadka la leenayo shacabka leynta laga daayo laba maxaabiis oo kale ayana leeyahay waa la soo deenayaa oo la doonayaa in la isku soo bedelo oo yana xagga laga soo deenayo oo la leeyahay maanta hal islaafsado kuwaana way jiraan Guumeys yaa lagu kala bedelayaa la isugu tagayaa ilaa maanta qoladii kale barca imka laga soo qaaday qoladan halka waa imka laga qaaday laga dareeriyay. dhanka kale odayaasha ayaa ka waramay xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay waxa ayna sheegeen in xaaladdu wali sideedii hore ay tahay aysan jirin saansaan nabadeed waa kan Xaaji Maxamuud Xaaji Cumar Camay oo mar kale arrintaasi ka hadlaya. arrintaasi sidii weey waxba iskama bedelin sida baa la soo horfadhiyaa xabad baa la soo haystaa waliba si dhaqsale baa looga baqayaa in weerar iyo dagaal ay soo qaadaan nimankii soo qaadi jiray waxay dalka ku haysabaan qabaanu nimanka dal bay leeyihiin dadkan dal bay leeyihiin koodiba malaa ku filaan waado malaa kari doonayaan inay ku tarsadaan helina maayo saasaan anagu nabad baanu ku dhawaaqayna haddaanu weyno waxbaan iska celinay. Ibrahim Maxamed Cabdi ayaa ka mid ahaa dadkii halkaasi ka hadlay arrimaha meesha yaala iska horimaadka Somaliland iyo beeshan Burbahante waxa weeye sababta aan nimankii aanu ku qabqabanay aanu u soo deynay waxay ahayd dad masaakiin ah maskaxda laga haysto wareysigooda TV-ga aad ka arki doontaan sida su'aalaha aanu u weydiinay waxa ay kaga jawaabeen aad moodo inaanay qalbiga iyo maskaxda toona aanay xor ka ahayn baa nimanka ka muuqday waxaanu leenahay maanta oo ah maalintii Kalshaale la weeraray maalinteedii oo sanad guuradeedii xasuuqi ka dhacay Kalshaale ay tahay waxaanu dadka u sheegaynaa caalamka waxaan u sheegaynaa iyo islaamka iyo Soomaali weyn arrintaasi in ay tahay arrin had iyo goor aan laga tanaasulin oo soo noqnoqoto ay caadaysteen beelaha isaaq duulaanka joogtada ay ku soo qaadayaan beelaha bariga harti annagu dad islaam baanu nahay naftooda dooni mayno maalkooda dooni mayno cirdigooda dooni mayno gurigooda dooni mayno maalkooda iyo gurigooda iyo deegaankooda iyo dhulkooda midna ma rabno waxaanu rabnaa inay noo nabadgeliyaan deegaankayaga iyo dadkayaga iyo naftayada iyo maalkayaga iyo barta aanu ku noolahay qofna qof ma qasbo qabiil ma qasbo inna lagu sanduleeyo annaga oo la yiraahdo isaaq baad wax la leedahay waad ku sandulaysan tahay arrintaasi waa arrin aan la qaadanay waa arrin aan naga dhaadhacay waa arrin la isku dilo waa arrin fool xun waa arrin haddii miyad qabliga wadada aanu xaal ka leenahay run ahaantii. maxaabiistan maanta ay sii daayeen dadka deegaanka Buuhoodle ayaan ahayn maxaabiistii ugu horeysay oo lagu qabto dagaal ayna sii daayaan dadka deegaanka Buuhoodle. Malyuun Axmed Xasan